deegaanada hoos yimaada gobolka Sanaag ayaa lagu qabtay xaflad lagu taageerayay guushii madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ee uu ka gaaray doorashooyinkii dhawaanahan ka dhacay deegaanada hoos yimaada Somaliland. xafladda ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada ee ku nool magaalooyinka iyo deegaanada hoos yimaada gobolkaas. warbixinta ku saabsan waxay noo soo diray wariyaheena Yunis Salax. Shacbiga deegaanada koonfurta gobolka Sanaag ee Ardaab oo dacday iyo Fuliye ayaa hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee 5 sano ee soo socota hoggaanka dalka loo doortay Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici. bulshada deegaanadaasi ayaa hambalyo kadib waxay cod dheer ku sheegeen inay garab istaagi doonaan xukuumadda cusub ee dhawaan dalka hogaamin doonta. sidoo kale waxay hoosta ka xariiqeen inay qayb ka ahaayeen guusha uu madaxweynuhu gaadhay. waa kuwan qaar ka mid ah waayelka waxgaradka iyo haweenka degmada Fuliye oo ka hadlaya arrimahaasi. waxaanu salaan iyo hambalyo aan dirayna madaxweynaha ku guuleystay tartankii hadda horta ku guuleystay Muuse Biixi Cabdi waa salaamayna halkan hambalyo ayaa baan uga soo jeedinaynaa taniyad wanaagsan baan uga soo jeedinaynaa soo dhawo waayaan ku leenahay xafladda halka waxaan ugu qabanay hambalyo soo dhaweyn musharaxa madaxweynaha shanaad ee Somaliland ee ku guuleystay doorashadii ka dhacday Somaliland 13 bishii 11 ee 2017 waxaanu leenahay hambalyo madaxweyne awalba waa dowladana soo dhawow madaxweyne ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici xisbiyada qaranka ee Somaliland oo iyaguna u soo tartamay si fiican hadhow u tanaasulay doorashadii marka laga helay si wanaagsan iyagana waxaanu leenahay hambalyo madaxweynaha cusub ee maanta xilka ku guuleystay Somaliland waxaanu leenahay Allah ku fududeeyo xilkaas waa culus yahay hambalyo iyo bogaadin iyo soo dhaweyn halkan uga jeedinayna dhamaantayo halka waxaan uga hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saylici marka hore dhammaan Somaliland iyo hambalyo u diraya mar labaadka waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha cusub oo ku guuleystay iyo ku-xigeenkiisa ayaan hambalyo u dirayaa waxaan leeyahay hambalyo marka xiga waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynihii hore Axmed Maxamed Siiraanyo oo sida sharafta leh u soo maamulay una wareejiyay ilaahayna ku guuleeyay isagana waxaan leeyahay hambalyada saddexaad waxaan u dirayaa wasiirkii isbaray Somaliland iyo koonfurta Sanaag Xuseen Cabdi Boos ka hambalyeynaya Muuse Biixi xisbiga cusub ee qabtay dawladnimada madaxweynaha ayaan hambalyeynaya halka wax ka hambalyeynayna waxaan u hambalyeynayna dawladdeeda cusub ee dhalatay hambalyo Muuse Biixi Cabdi waa hambalyeynayna hambalyo waxaanu kala u hambalyeynayna tartanka xisbiyadii nagula jiray Cifro iyo Faysal Cali Waraabe sida ay u tanaasileen oo quruxda iyo qiimaha badan madaxweyne taageeradeeda aan muujinay ma sha Allah wad ku soo baxday madaxweynaha cusub mar walba waa soo dhaweynaa gacmo furan qalbi furan madaxweyne tan waa degmadii aad seexatay ee Fuliye soo dhawow baan ku leenahay madaxweyne Axmed Salax Universal TV Daawo.